بريان اسكندنافيا أنا هيست شالي وحاجة نرويج maanta waxay noo imaadeen Sweden bari waxaan suugaynaa Denmark bari damana Finland Scandinavia Soomaalida marka reer Scandinavia waxaa leenahay bal hataa qabiilka inta iska daysaan waxaa daan ra'iisul wasaarayaasha bariyahan socda waa Scandinavianke idinkoo shanta beelood ee Soomaali oo dhan wada jira isla wada taageera ummadeena Soomaalida mushkilada ugu dhacay marka maxay tahay waxa ugu dhacay hal xiraale aan la furi kareynin oo si caqli haddii aan loo fiirinin inuu bilaashay soo baxayso aqoorta linoo geliyey waxa aqoorta linoo geliyey ummadani waa ummad isku mid ah hamurmina hays khilaafina waa tabar yaraynaysan saasa leeyeen waxa mushkilada inoogu noqotay waxa la yiraahdo qabiilka oo quraanku ugu talagalay in li taarafu la isku aqoonsado bas ah oo inta aan loo dhaafaynin yaa waxaan ka dhignay booskii ummaddu ay kaga jirtay inay ummad wada noqoto intii la kala babaxay qabiilka dhigay markaas mushkilada waxa imaatay si loo xalliyo la garan laayahay oo ah qofka madaxa laga dhigaayo ama madaxa inoo noqonayo waxa lagu ciraaba marka ugu horeysaba waxaan hore dadka u wadeenin oo ah qabiilka la fiirina qabiilkaas marka qabiil la fiiriyo qabiilku Soomaalideenan odayaasha qabaa'ilka xukuma ugaas dhe ama malaaq dhe ama ism dhe hogaamiyaasha ah ma jirta markii la magacaabayo ama madaxweyne ama ra'iisul wasaare intii loo yimaado la yiraahdo Soomaaliya dhageysta waxaan rabnaa inaan magacaawno ra'iisul wasaare rabnaa inaan magacaawno reer heel baan rabnaa inaan ka dhex magacaawno odayaashii reerkaas midkooda ugu fiican intay ka soo tashadaan hanoo keeneen reer la yiraahdo wali ma aragteen ma jirto in isla socota wax isku aadisanaysa taargadii qabiilkan way yaqaanaan taargada ay soo qaadayaan qof kamida dadkii ay isla socdeen saaxiibada ahaayeen way ku dhajinayaan bas waa la magacaabay reerkiisii lagama tashanin culimadiisii lagama tashanin hebel kale lagama tashanin sidaas markii la yiraahdo kii taageerina wuxuu u taageeri waa qabiilkeena kii ka soo horjeesan wuxuu ka soo horjeesanayaa qabiilkeena ma aha halka markay joogto waa xisaab aan la xalin karin si loo xaliyo waxay noqon lahayd soo waxa la isku khilaafsan qabiil ma aha qabiilka oo dhan qof Soomaali ah oo qabiil ka dhashay xageena ka dhiga haye maxaa sameeynaa si aan waa reebel qofkan looba dhiginba mid aan reebel ahayn keena bal idinku soo raadinaa reebel ahayn ma la heli karo waa xisaab adag lama keeni karo maxaa yeelay qof walba oo la soo qabto reer loo noqonaa maxay aabihi hooyaa dhalay aabihi hooyada waa Soomaali waa la yaqaana waa la yaqaana hadii marka qofkii la soo qabto marka uu noqdo kuna uu yiraahdo waa anigoo waan taageera kuna uu yiraahdo ma adiga anna ma taageerayo oo wax barnaamij ah oo ama lagu macaarado ama lagu taageero ay meel iroolin waligeed si loo ontay ma iska daba wareegaynaa marka saas ma la rabo waxa la rabaa manhajka aan ku soconana waa quraankeena waadiicu Allah wa rasuuluhu wa inoo taala khilaaf iyo muran iyo dood xaq inaga dhiga waxoogaga ina dhex maraayo isjiijidkaana wasbiru in Allah ma'a sabirin isu dulqaat hal isu sabro intaas loo baahayay marka hadda waxa markay ugu socotaba Soomaalideena mushkiladina haysto waxay tahay